بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، ولا ليال waxaan doonayaa maanta in xoogaha yar jawaab yar aan yara siiyo qolooyin maalmahan soo baxay oo shaki gelinaya salaadaha shanta ee faradka ah ee Allah subxaanahu wa tacaala ee nagu waajibiyey kuwa shaki gelinaya. kuwa ayaan rabaa inaan xoogaha yar oo mulxidiinta ah in aan u yara jawaabo. salaadu inaanay iska ahayn wax oo ay alifeen dad aadami ah ama kasoo fushay maskax aadana kasoo fushay inaanay ahayn, oo ay tahay arrin culus iyo waajib culus ee inooga yimid xagga Allah subxaanahu wa tacaala khaaliqeen kor ahaaday. balse marka hore waxaan ku bilaabayaa salaadu in ay tahay tiir ka mid ah tiirarka islaamka, weliba tiirka ugu weyn inay ka mid tahay, oo asalaatu cimaaduddiin waatan uu yiri nabigeena maxamed ahaa badbaadey naxariis dushiisha ahaatee. salaadu waa tiirka diinta islaamka oo dhami. buna alislaamu calaa khamsin: shahaadatu an laa ilaha illa allah, waa shahaadadeynka ugu horreeya waana maxamedan rasuulullah. iqaamatu salaa, salaada oo la ogo oo shuruudeeda arkaanteeda la fuliyo ayaa muxuu ahaa ka mid ah. kadibna waa itaau zakaa iyo soomu ramadaan iyo xaju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila. marka salaadu waa acmaasha ruuxa muslimka ahi ee uu ku camal falo, waa camalka ugu wanaagsan ee Allah subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay. marka la yimaado inay tahay tiirka diinta islaamka ay tahay, haddana waa acmaasha Allah subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay ee uu ku camal falo addoonka muslimka ah ama gabadha muslimadda ah ay ku camal falaan, sida ka sugnaata suubanayn maxamed ah badbaadey naxariis dushiisha ahaatee uu ku yiri xadiis ka mid ah axaadiistiisa: axabu alacmaal ila allah alsalaatu fii waqtiha. acmaasha kuwa ugu jecel yahay Allah subxaanahu wa tacaala waa asalaatu fii waqtiha, salaada oo lagu tukado oo qofka muslimka ahi uu ku tukado waqtigeeda ayaa ah acmaasha ruuxa muslimka uu ku camal falo midda ugu wanaagsan. haddaba ma doonaysaa in aad u dhowaato Allah subxaanahu wa tacaala? badi salaada tukashadeeda. ma doonaysaa in aad ka mid noqoto Allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa kuwa ugu jecel yahay oo aad hesho maxabbadiisa? iyadana badi salaada tukashadeeda. sababtoo ah salaadu waxay la meel joogtaa xiriirka ka dhaxeeya addoonka iyo rabbigii, oo haddii aad salaad tukan waxaad la micno tahay adiga oo jaray xiriirkii aad la lahayd khaaliqii ku abuuray ee ku keenay dunidan ifkeeda, kaana celin doona berrito hadduu alla idmo, qiyaamahana kaa soo saari doona. minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, si lagu xisaabiyo. marka khaaliqaa ku abuuray ee bixinaya quudka aad quudanayso, cabitaanka aad cabbayso, oksijiinta aad neefsanayso, kaarboonka aad soo celinayso, dhaqdhaqaaqaaga oo dhan, socodkaaga, caafimaadkaaga, nasashadaada, jiifkaaga, soo kicitaankaaga, allahaasi bixinayay oo waxyaabahaas oo dhan haddii aad suuqa aado aadan ku helayn, beec aadan ku helayn, allahaasi bixinayay ee weliba bilaashka kugu siiyey, si free ah kugu siiyey, ayay la micno tahay haddaad ka tagto salaada tukashadeeda adiga oo jaray xiriirkaasi. marka ruuxa aan allihii abuurta aan xiriir la lahayn, noloshiisa maxay la micno tahay? marka salaada waa fursadda keliya ee Allah subxaanahu wa tacaala aad kula hadlayso. 5 jeer ayuu ku siiyey Allah subxaanahu wa tacaala fursad oo maalintii aad kula hadasho. waa marka aad tukato 5 salaadood ee waajibka ah: subaxa, duhurka, casirka, maqribka iyo cishaha. 5 fursadood Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey, oo markaad gasho salaada waxaad leedahay
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waayo waxaad ugu mahad celinaysaa allah nimcooyinkii faraha badnaa ee uu ku galladaystay. alxamdu mahad lilah allah ayay u sugnaatay rabbi alcaalamiina, allihii abuuray makhluuqa oo dhan, abuuristan oo dhan allihii keenay dunida dhifka keenay ayaa mahad iskale ayaad leedahay. marka haddaanad tukanin goormaad u mahad celinaysaa? marka allah subxaana wa tacaala allihii ku abuuray goormaad u mahad celinaysaa? ilaan fursaddii adaa lumiyey. weliba waxaad sii leedahay haddana arraxmaan arraxiim, allah raxmaanka ee bixiya naxariista guud marka ay dunida joogaan dadka oo dhami, muslim iyo gaalo ay ka wada dhexaysa naxariistiisa. arraxiimi, allah naxariistiisu ay khaas u tahay dadka muslimiinta ee keliya yowma alqiyaamaha. markaasaa waxaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu, ilaahu adaan ku caabudaynaa, adaanu kaa kaalmo dalbaynaa. markaasaad leedahay ihdina asiraata almustaqiima, allahaga ayaad baryaysaa, waxaad leedahay allow nagu du waddada toosan ee hanuunka, ilaahayo waddadaas nagu hagaaji. siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim, waddada nagu du ilaahayo kuwa aad u naxariisatay oo aad u barwaaqaysay, aanan ahayn gayri almaqduubi calayhim kuwa aad u carootay ee yuhuudda, wala daaliin ay kuwa aad baadaysay ee nasaarada. ilaahayo waddadaas naga weeci oo nagu du waddada saxda ah ee dhabta ah toosan ilaahayo. marka haddii marka aadan dhihin oo aadan tukan salaadii, waxaad halkaas ku jirtay xiriirka allah subxaana wa tacala ee adiga idinka dhexeeya aad halkaas ku jirtay. marka waxaa wanaagsan in salaada xoogga la saaro, weliba in aanu kala ballanno ubadkeenna, gabdho iyo wiilalba, kuwa dalka jooga, kuwa dibadihiisa jooga. waayo aaladihii maanta way farabateen, teknolojiyada heerkaasay maraysaa, caaddaasay maraysaa teknolojiyadii. wax waliba waa la soo gelinayaa marka, wax sax ah, wax qaladan, waxyaabo waxaa jira marka maskaxdu ilmihii ay maskaxdooda muran gelinaya. marka xoogga ha la saaro sidii ilmaha lagu abibin lahaa, salaada loogu abibin lahaa, inaynu xoogga saarno ayaa muhiim ah mar waliba. marka cumar bin khataab allah ka raali noqday waxa uu yidhi laa xadda fi lislaam liman taraka asalaa, wax nasiibihii kuma laha islaamka qofki ka taga salaada. suubanayn maxamed ah badbaadi naxariis ahaatay dushiisa ahaatay isna waxaa ka sugnaatay alcahdi aladii baynana wa baynahum assalaa faman tarakaha faqad kafar, cahdigii noo dhexeeya annaga iyo kuwa kufaarta ahi waa salaada, qofkii ka tagaana faqad kafar. walow arrintaasi a'immada qaarkood ay isku haystaan oo xoogaha yar raji yar la siinayo kuwa salaada ka taga. waa kuway laakiin qofka hadduu salaada waajibnimadeeda iyo faradnimadeeda uu inkirsan yahay, uu diidan yahayba jiritaankeeda, kaasi kufrinimadiisa waa caddahay oo wax madmadooha ku jira ma laha. sababto ah salaadii wuuba inkirsan yahay. laakiin ninka waajibnimadeeda aaminsan oo qirsan in ay salaada waajib ku tahay, laakiinse caajis iyo muxuu ahaa iyo arrimo kale waxyaabahaas kaga tegay oo saas ay ku dhaaftay, ayaa a'immada qaarkood waxay siinayaan fursado, waxay leeyihin waa faasiq. laakiinse mar waliba waxaa wanaagsan in uu ka toobad keeno oo u soo laabto allah subxaanahu wa tacaala, uu bilaabo tukashada ama salaada tukashadeeda in uu bilaabo ayaa waajib ah. fain taabuu aqaamuu salaata fa ikhwaanukum fi ddiin. marka intaasi waxaan u soo qaatay xusuus in aan xusuusiyo walaalahayga muslimiinta ah salaada mugga weyn ay ku leedahay diinta islaamka ay ku leedahay inaan xusuusiyo. balse haddii aan u soo laabto qolyahan ka shakinaya salaada jiritaankeeda ee mulxidiinta iyagu sheegaya maalmahan, salaaddu waxay iska ahayd caadooyin iyo dhaqanno ay lahaayeen dadkii hore ee wataniyiinta ama dadkii asnaamta caabudi jira, caadooyin ay lahaayeen ayay ku tilmaameen inay iska ahaydba salaadu. marka maxay leeyihiin? waxay leeyihiin islaamka ayaa yimid, caadooyinkii ayuu soo qaatay, waxbuu ka badbedelay, wuxuu gaarsiiyey marka inuu dadka ku qasbo, heer uu gaaray inuu yidhaahdo ninkaana tukan naar ayuu gelayaa inay yidhaahdaan, oo waxay ka dhigeenba wax caado uun meelaha iska taaltaallay. marka anuu u jawaabaya qolyahaasi, horta salaadu ma aha mid meelahan uu laga soo qaadqaaday ama aadami ay falsafad ay soo ururiyeen oo sidaa muxuu ahaa ee nalagu waajibeeyey.
salaadu habeenkii israha ee la dheelmiyay nabigeena maxamed sallallahu wasallam alayhi ee laga maka allaysa uu la kulmay waa habeenkii israha ee micraajka 27kii bishii rajab laba sano ka hor inta nabigeena maxamed uusan u hijroonin madiina ayaa salaada lagu farday oo naloo soo dejiyay salaadaha marka aan u kuurgalno anoo isku daya inaan daliil cad ama cadaymo cad aan gacanta u geliyo kuwa ka shakinaya salaada faradnimadeeda iyo waajibnimadeeda iyo jiritaankeeda marka ugu horeysa shanta salaadood aan tukanno tirada ragcadaha ay ka kooban yihiin waa imisa subaxii waxaan tukannay 2 ragcadood duhurkii 4 ku dar waa 6 casarkii 4 ku dar waa 10 maqribkii waa 3 ku dar waa 13 cishihii waa 4 ku dar waa 17 ragcadood bal fiiri ragcadaha aynu tukanno shanta salaadood maalintii waxay ka koobmaan 17 ragcadood habeenka salaada la soo dejiyay waa habeenka israha ee micraajka haddaba suuratul israa xaggee kaga jirtaa lambarkee ayay kaga jirtaa suuradaha quraanka ee 114 ah subhanallah markaad fiiriso oo aad soo tiriso suuratul israa waxa ay dhacdaa oo ama ay kaga jirtaa tirada suuradaha quraanka nambarka 17aad tirada ragcadaha aan tukano maalintiina waa 17 ragcadood marka ma idin la tahay ruux aadami ah in uu arrimahaas isu keenay waa maya arrintaasi waa mid inooga timid waa mid ka soo fushay xikmadda Allah subhanahu wa ta'ala ee quraanka soo dejiyay ee ku beegay habeenka salaada lagu waajibiyay iyo tirada ragcadaha iyo suurada isku beegay lambarkooda isku beegay daliilka labaad aanu imaado daliilka labaad waxa uu yahay kelmadda salawaat kelmadda salawaat imise jeer ayay ku soo aroortay kitaabka quraanka kariimka waxa ay ku soo aroortay 5 jeer ayay ku soo aroortay subhanallah waa imise marka tirada salaadaha aynu tukano maalintii iyaguna waa 5 waa subax duhurki casirka maqribka iyo cishaha waa 5 salaadood bal aan fiirino aayadaha tilmaamaya arrintaas iyada ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum muhtadun oo suuratul baqara ay ku jirtaa xaafiduu cala salawaati wasalaati alwustaa suuratul baqara ay ku jirtaa iyadana ومن الأحزاب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومد أفرات والذين هم على صلواتهم يحافظون ومد شنات ومد كوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ومد كوات حافظوا على الصلوات واتس كلمة الصلوات ومد اللبات ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ومد صدحات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ومد أفرات والذين هم على صلاتهم يحافظون ومد شنات صدق الله العظيم بل ايك قرآن هذا باربرتو شنتاس جير كليا أي كسو أرورتي كلمة صلوات مركا ما waxaan dhihi karaynaa ruux aadami ah ayaa isku soo hagaajiyay waxaan tirada salaadaha aan tukanayno waa 5 aayadaha ku soo arooray quraankana ee ka hadlaysa kelimada salawaadna iyaguna waa 5 subhanallah aan soo qaadano midda kale maxay tahay iyaduna waa midda saddexaad waa daliilka saddexaad waxa uu yahay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo faraya adoomadiisa muslimiinta ay kuwa muslimaadka ahba gabdhiis muslimaadka ahba wuxuu yiri aqim og as-salata salada
صلاة أوك معناها صلاة تكو أو فولي أركان تيدا يشروط تيدا هذا كلمة دا أقم الصلاة إمسا جور أي كسو أرورتي كتاب كقرآن الكريم كا أقم الصلاة يدونا شنجر أي كسو أرورتي بل أن أغنو عندي بقول لابن القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وآيد كوات وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأمد كوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأمد اللبات وأقم الصلاة لذكري وأمد صدحات هي كجرت سورة طه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأمد أفرات يا بني أقم الصلاة ويلكيجيو أوك صلاة ومركي نبي لقمان أوكلها أواني ويلكيس أوكلها وأمد الشنات لا إله إلا الله سبحان الله بل إيك هدنا صلاته شنتها الله سبحانه وتعالى isagoo adoomadiisa si keli ah ula hadlaya oo faraya salaada ayaa wuxuu ku yiri aqim as-salaa shan jeer ayayna ku soo aroortay kitaabka quraanka kariimka haddii aad baarto mid lixaad kama helaysid marka sidee ku timid arrintan waa xigmada Allah subhanahu wa ta'ala ayun bay ku timid marka caada la soo qaatay iyo midna iyo oo ma aha waa mid ku salaysan xigmada Allah subhanahu wa ta'ala khaliqna abuuri salawatullahi wa sallam jalla sha'nuhu wa ala ee amarkiisa kor ahaada wax waliba qaalib ka noqda ee ka hufnaada wax waliba iyo nuqsaan kasto aadanaha ay u sameynayaan kuwa ka soo horjeeda awaamirtiisa iyo daacadiisa marka waa marka keli ah Allah subhanahu wa ta'ala uu amray adoomadiisa muslimiinta iyo muslimaadka aan eegna marka isagoo jamac u faraya adoomadiisa inay salaada ogaan wa aqimu as-salah wa atu az-zakah salaada ooga wa aqimu ooga as-salada salada ومعناه waxa uu yahay tukada salaada oo fuliya shuruudeeda iyo arkaanteeda fuliya aan eegna marka iyadana intee jeer ayay ku soo aroortay kitaabka quraanka kariimka 12 jeer ayay ku soo aroortay kitaabka quraanka kariimka 12 jeer ayay ku soo aroortay aqimu wardadihu ooga as-salada iyadoo si jamac Allah subhanahu wa ta'ala si plural oo ula hadlayo ula khitaabayo oo amar u siinayo adoomadiisa muslimiinta iyo muslimaadka ahba tii horena waxay ahayd isagoo si keli ah ula hadlayo أقيموا الصلاة صلاة أوغا لبي تبنشير أي كسو أرورتي كتاب القرآن الكريم مدة أوغدا بيسة وحي كجرتا سورة المزمل أي كجرتا والله سبحانه وتعالى وحوليه فاقرأوا ما تيسر منه أقري قرآنك وحا إذنك سهلا هذا مركا يا أذكرتان إذا أودان وأقيموا الصلاة صلاة أوغا ومدة وآيات أوغدا بيسة marka hadaad baarto 12 jeer ayaad ka helaysaa marka 12 jeer Allah subhanahu wa ta'ala si jamaca ayuu noo faray uu nagu amray in aynu u tukano salaada shan jeerna wuxuu amar siiyay si keli ah ayuu amar noogu siiyay in aanu fulino oo aanu tukano salaada isugay marka imisay noqonayaan waa 17 jeer 17 jeer maxay la micno tahay marka 17 ragcadood ee salaada ayay la micno tahay subhanallah marka walaalayaal sidaasay waxyaabaha isu dhaafayaan maalmahan oo cunug kasta oo aad dhashay ama wiil kasta ama gabar kasta aad dhashay meel kasta oo dunida ay ka joogaan qof waliba sidaas uu haystaa mobilkiisa wax waliba saasuu meesha uga arkaya marka waxaa laga yaabaa ilmihii in ay ku wareeraan xitaa dadka waaweyn laftooda marka meeshan waxay nooga cad daliiladaas afarta aan soo sheegay in salaada ay tahay arrin culus ee inooga timid xagga Allah subhanahu wa ta'ala khaliqna abuuray in uu nagu waajibiyey habeenka israha iyo mi'raajka aynu ku soo aroortay suuratul isra oo iyadana 17 nambarka 17aad kaga jirta suuradaha quraanka kariimka
waxaan sidoo kale ka soo sheekeynay waxyaabaha caddaynaya arrintaas iyada ah. marka kuwa shakinaya ee shakiga ku abuuray dadka waxaan leeyahay ogaada maaha salaadu wax qof ruux falsafad ah ama filosof uu sameeyey maaha, waa mid ka soo fushay xagga khaaliqeena kor ahaaday ka soo fushay. allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaana iswaafajiyey aayaadka ku soo arooray qur'aanka iyo salaada arrimaha ku saabsan intaba. allah subxaanahu wa tacaala arrimihiisa ruux aadami ah ma faragashan karo, mana awoodo in qudrada allah subxaanahu wa tacaala innaba inuu shaki geliyo iyo mucjisooyinka allah subxaanahu wa tacaala innaba inuu shaki geliyo ruux aadami ah ma awoodo. marka walaalayaal ha lagu dadaalo waxyaabaha wan wanaagsan. waxaanu ku jirnaa bisha ramadaan ee barakaysan ayaanu ku jirnaa, khayrkeeda allah ina wada waafajiyo. marka acmaasha wanaagsan aynu isfarno, marka allah subxaanahu wa tacaala aynu ka barino in dalkeenni iyo ilaahay uu nabad inooga dhigo. xoogaha murnada maalmaha jira iyana in ilaahay muxuu ahaa ummaddii in uu isfahamsiiyo. waxyaaba ka waaweyn ayaaba jiraba oo cadowgii ayaaba dhinaca kasta nooga soo duulaya, weliba kuwa dariska ah. marka allah subxaanahu wa tacaala aynu u laabanno, aynu ka fikirno ummadda soomaaliyeed danteeda ha laga shaqeeyo, khilaafkan iyo murankanna aynu ka tagno dhinaca iska dhigno. sababto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yiri kitaabkiisa wactasimuu bixablillahi jamiican, xariga alla wada qabsada. marka alla xarigiisa wada qabsataana wax weliba way idin fududaanayaan. marka muranka yar ee dalka ka jira iyo siyaasadda iyo dastuuri waxa la isku haysto waxyaaba ka waaweyn ayaaba jiraba, cadowga ayaabana soo hunguriyanaya oo kuwa inaan walaalanahay sheeganaya iyo kuwa dariskana lahoo aan doonayn soomaaliya inay degto weligeedaba. marka allah subxaanahu wa tacaala ayaanu ka barinaynaa in khayrka uuna wada fujiyo meel kastoo aan joognaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.